الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزير هذا الشرفت له xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka, safiirka dalkan walaalaha nahay ee Turkiya, saraakiisha iyo xubnaha qalabka sida ee ciidanka Jamhuuriyadda Turkiga ee halkan ku sugan, diblomaasiyiinta marti sharafta kale ee halkan joogta dhammaantiin mudanayaal iyo marwooyin galab wanaagsan. waxaa sharafi ah anigoo ku hadlaya magaca dawladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya inaan maantay idin kala qayb galno magaalada Muqdisho munaasabadan ka dhacaysa ee xuska maalinta guusha 30 Agoosto oo ah maalin qiimo weyn ugu fadhida Jamhuuriyadda walaalaheena Turkiga iyo dhammaan dadka qadariya macnaha ay ugu fadhido xorriyadda, karaamada iyo madaxbannaanidu. maalintan waxay xasuus u tahay guushii taariikhiga ahayd ee hadda laydinkaga hadlay ee dagaalkii 1922 ay la galeen xoogagii gumaystaha ahaa ayna uga guulaysteen, halkaasna ay ku soo afjareen mucaanaadkii iyo dhibaatadii xoogga badneed ee ku soo wajahnay dalkaas mustaqbalka weyn hadda maanta leh, taasoo uu hogaaminayay hogaamiyihii weynaa Mustafa Kemal Atatürk, taasoo dhammaystirtay madaxbannaanida qaran ee Turkiga una noqotay iftiin iyo dhiirigelin dadyowga dulman ee dunida oo dhan jooga. ka Soomaali ahaan waxayna xusuusinaysaa in qaran kasta uu ilaalin karo madaxbannaanidiisa iyo karaamadiisa, midnimo iyo nafhurnimo iyo go'aan adag inuu ku ilaalin karo. Soomaaliya iyo Turkiga waxa ay wadaagaan wax badan iyo xiriir taariikhi ah, waxa ayna wadaagaan walaaltinimo, midnimo iyo ixtiraam isdhaafsi. sanadihii la soo dhaafay Turkigu waxay garab weyn u ahaayeen oo garab taagnaayeen gaar ahaan waqtiyadii adkaa dalka iyo shacabka Soomaaliyeed, ayagoo ka taageeray dhinacyada amniga, horumarka, gurmadka bani'aadamnimo iyo tan ugu muhiimsan oo ah dhismaha iyo tayeynta hay'adaha difaaca qaranka oo aad marqaati ka ahaydeen helicopteriskii dagaalka oo maantay korkeenna dul heehaabaya qaybna ka dhismaha ciidankeena. iskaashigan wuxuu muuqaal dhab ah ka bixinayaa ruuxda maalinta guusha, in la isku soo gurmado oo la isgarab istaago xaaladaha adag. annaga oo maanta u dabaaldegayna munaasabadan sharafta leh, Soomaaliya waxa ay mar kale xaqiijinaysaa himiladeeda ah inay sii adkayso iskaashiga istiraatiijiga ah ee dhinacyada difaaca iyo amniga ee kala dhaxeeya dalka aan walaalaha nahay ee Turkiga. waxaanu aad ugu mahadcelinaynaa taageerada joogtada ah ee walaalaheen Turkigu ay ku bixiyaan dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si uu u noqdo ciidan xirfad leh oo awood u leh difaaca madaxbannaanida dalkeena iyo ka qayb qaadashada xasiloonida gobolka. maalintan taariikhiga ah waxaan ku soo gudbinayaa magaca Soomaaliya hambalyo diiran oo ku socda dawladda, ciidamada qalabka sida iyo shacabka Turkiga. ha sii jiro ruuxda 30 Agoosto, anigoo ku dhiirigelinaya dhammaan caalamka inay u adkaystaan qiyamka madaxbannaanida iyo gobonnimada iyo midnimada dadaalka ay ugu jiraan. Dr. Shakur Idris, mahadsanidin waana mahadsantihiin.